السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يروح الروايان maanta idin la wadaago sida blockchain-ka loo isticmaalo. Tusaale sida blockchain-ka lacag looga diro iyo sida adiga lagugu soo diri lahaa maxaa lagaga baahan yahay. Okay, let's go. Aan tagno blockchain-kayga. Anu blockchain-ku igu jira waa kana. Dabcan blockchain-ka Play Store-ka kala soo degaysaa waa kana u jeedaan blockchain ay ku qoran tahay. Play Store-ka marka aad kala soo degto kadibna create account baa leedahay. kadibna gmail-kaaga aad ku samaysan kartaa iyo password markaas si aad gashato kadibna waa ku samaysmaya sidaan ayuuna ku noqon doona. Okay blockchain horta marka uu ku soo kaco sidaan buu ahaan doona. Marka wuxuu leeyahay hoos markaad fiiriso afartan wuxuu la tacaamulaa afartan. Tani waa mid sendiga oo lacagta laga diro oo geeska u xigta. marka aad rabto inaad qof wax u dirto midani waa mid dashboard-ka oo aad ka arkayso maaragtay lacagta kugu jirta iyo waxaas intay tahay. Tusaale qiimaha price hadda Bitcoin price-ka wuxuu marayaa $7,686.87 halka Bitcoin la mid yahay Ether price-ka, Bitcoin Cash price-ka iyo waxa la yaqaano Stellar. So marka kan ku xiga waa wax transaction-ka loo yaqaano tusaale lacag aad dirtay kuwii ku soo galay iyo intii aad isticmaalaysay. Midaan geeska marka ugu xigta dhanka midig ayaa ah midda tusaale qof baa wuxuu ku yiri halkaan joogtaa tusaale qof baa wuxuu ku yiri ii soo dirso waxaad rabtaa qof inaad lacag ka dalbato. So marka qofka aad lacagta ka dalbanayso lacagta aad u cash baad haystaa Bitcoin baad u baahan tahay si Bitcoin lacagtaadu ay u soo noqoto waa inaad taabataa halka ay ku qoran tahay request calaamada falaarta hoos soo aadaysay dhanka midig xigta ayaa taabanaysaa kadibna xarfahan yar ee maaragtay dhibka badan ee kor ku qoran baad taabanaysaa kadibna waxaad leedahay yes kadibna qofkii aad rabtid u diraysaa WhatsApp-kiisa oo kale tusaale baad rabtid ku diraysaa marka wax dhib la tusaale maan qofkan basta ku leedahay halkaas saas ugu diraysaa wax dhib lama marka anyway waa wax iska fudud. Haddii aan rabo tusaale inaan qof anigu aan wax u dirana qaybtan ayaan ku dhufanayaa sendida ah ay ku qoran tahay kadibna meeshan ay ku qoran tahay waxaan gelinayaa tusaale qofkii blockchain-kiisii uu ii soo diray oo hadda sida aniga aan ugu diro kale uu igu soo diray ayaan gelinayaa halkan kore tusaale pastii waa kaygii kan uu dhib ma lahan xaggan hoose lacag ku qoraysa tusaale waxaad u dirto $1,000. Okay $1,000 markaa gelinaysa tusaale waxaad rabtaa inaad u dirto wax loo yaqaano $100 markaa gelinaysa kadibna continue si la dadama lacagta igu jirto iska baa $100 inaad diray continue uma filan lacagtu igu jirto way dhahay. So markaa saaxiib yaal waa sida anyhow waxa marka wax weeyaan wax dhib lama waa inta kaliya blockchain-ka waana afartaas kan waa sendi oo marka lacag diriso falaarka kor bay u baxaysaa waa dhanka bidix kan waa ii sheeg ma garanaysaa dashboard-ka meesha lacagta kugu jirta ka arkaysa kana waa iska transaction kana waa mid request-ga so waxaan qiyaasayaa qof walba in ka mid ah uu fahmi doono isla markaana aan mar dambe oran doonin sida loo isticmaalo waxa la yaqaano blockchain-ka. Thank you. Guys.